الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له شرفت بدن درسيني واكيت الضباط كتاب كني الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله weli waxaan ku jirnaa baabkii macaasiyada iyo macaasidu ee dhibaatada ay qofka u geysato. macsiyadu waxay dhaxal siisaa qofka dullinimo. cizigu dhammaantii wuxuu ku jiraa, cizigu waa sharaftu iyo wanaagu daacada ilaahay buu ku jiraa. rabbina waa ka dhahaya man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica. haddaba ciziga iyo sharaf waxaa lagu dalbaa daacada ilaahay, lagumana gaadho ciziga iyo sharafta ilaa daacada rabbi unbaa lagu haleelaa oo lagu gaadhaa. ducada dadkii salafka ahaa qaarkood ayaa waxay ku ducaysan jireen, allahayow igu cizee oo igu sharfi daacadaada, allahayow ha igu dullaynin macsiyadaada. imaam xasan albasri raximahullah baa isaguna wuxuu odhan jiray, dulliga macsiyadu ka tegi maayo dadka quluubtooda, ka tegi maayo. yacni qofka xun qalbigiisa macsiyada dullinimadeedu ma faaruqayso. allahna wuxuu diiday ilaa inuu dulleeyo ma ogyahay qofka caasiga ah, oo allah wuu dullaynayaa ruuxa caasiga ah. alimaam cabdullaahi bnu lmubaarak raximahullah baa wuxuu gabay cajab badan lahaa, ra-aytu dunuuba tumiitu lquluuba waqad yuurisu dulla idmaanuha wa tarku dunuubi xayaatu lquluubi wa khayru linafsika cisyaanuha. waxaan arkay buuri dembigu inuu qalbiga dilayo, uu dhaxal siinayana dulli iyo dullinimo ayuu dhaxal siinayaa. haddii dembiga la daa'imo wuxuu dhaxal siiyaa dullinimo. dunuubta ka tegideeduna waa qalbiga noloshiisa, waxaana kuu khayr badan qof walbow inaad caasido dembiga oo diido ayaa kuu fiican. waxaa ka mid a macaasidu waxay fasahaadisaa caqliga. bal u fiirso, caqligana way fasahaadisaa macsiyadu. caqligu nuur buu leeyahay, macsiyaduna waxay damisaa nuurka caqliga. haddii nuurka caqligu damana wuu daciifaa, wuuna nusqaamaa. salafkiibaa waxay odhan jireen dadkii hore, allah subxaanahu watacaala qofka ka zuuli maaya inuu caasiyo ilaa uu caqligiisa ayaa maqnaanaya. yacni qofku markuu casiyaanka samaynayo dembiga, caqligaagii ayaa tegaya. arrintaasina waa daahir oo way muuqataa. maxaa jira, hadduu ruuxa caqligiisi saliimka ahi joogo, isaga ayaa ka celin lahaa macsiyada. ayib, isaga oo ku jira allah subxaanahu watacaala qabdadiisuu rabbi hayo, isagoo taxta qahrigii ku nool, isagoo alla uu taalacanayo, isaga oo gurigii alla jooga, isaga oo gooshii alla ku fadhiya. ilan adduunkan aan joognaa waa gurigii rabbi iyo gooshiisii wey. isagoo malaa'igtu ay taalacanayso oo shuhuud iyo markhaati ka yihiin. ayib, isaga oo waacidkii qur-aanka u jeedo oo qur-aankii uu ka reebayo arrinta xun, isagoo iimaankiisina uu ka reebayo arrinta xun, isaga oo mowdka iyo geeridu ay ka reebaysa arrinta xun, isaga oo naarta iyo sheegyadu ka reebaya arrinta xun. laakiin waxa macsiyada kugu dhaafaya oo khayrka adduunyo iyo aakhare ah ayaa waxay ka wen yihiin 100 jeer iyo 1000 jeerba ka badan yihiin waxa aad ku helayso suruurka, farxadda iyo ladada aad dembi aad samaysay ku helayso. qofku markuu dunuubta samaynayo waxoogaa lada ay leedahay, yacni macaansi dembiga xilliga iyada lagu macaansanaya bay leedahay, laakiin ladadaasi ku daa'imi mayso, waqti yar bay kula soconaysaa. haddaba qof caqli leh arrintaas ma ku bedel qaadan karaa baa la yidhaahdaa. ruux caqli saliima leh, jawaabtuna waxay noqonaysaa maya. idan waxaa soo baxaysaa macaasidu waxay fasahaadaysaa caqliga. waa masale saxa wey, caqligiibaa fasahaadaya. qofku caqligiisa uu fasahaado oo garashadii ka dhimato oo daciif u noqdo oo nusqaan ay ku dhacdo, ayuu qofku macaasidii u banbaxayaa. rabbi subxaanahu watacaala hayna xifdiyo oo hayna ilaaliyo. الله سبحانه وتعالى هين دورو
allana haynaga dhowro macaasida iyo xumaantaba. Jazaakum allahu khayr, baaraka allahu fiikum, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.